wixii kana insha allahu tacaala farsamo gacan bari doonaa oo shaqo geyn doonaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nabadda ilaahayna siiyey baan ilaahay ugu shukri naqaynaa. noolaada ilaahay. walaal waxaan sheegi doonayaa inaad la socodsiiyo. horta anuu ilaa maalintii dagaalku ka dhacay huwantu inagu soo duushay laascaanood ilaa maanta weygii kastoo maalinba dadka warama. waxa weeye ummadda haddaad waramin ood xaaladda uga waramin taagan ta adduunka ta geyiga aan deganahay ta dalka gudihiisa aanad u sheegin inaad musharax baa tahaye wixii aad damacsantahay inaad dalka ka qabatid hadduu ilaahay ku qoro inaad noqotid madax dee markaa dadku waad ka maqanta. dadka adduunka baaburo la kaxayso la isdabageliyo iyo dad lacag loo diro iga horkaalaya iyagoo calama soo qaatoy dal laguma xodo. dal waxaa lagu wadaa oo lagu hantaa ummadda codka bixinaysa. wax horaan shaqo u qabtay oo mas-uulaha waxaasaan qabtay halkaasaan gaarsiiyey halkaas wasiir baan ahaa asaasaan qabtay madaxweyne ahaa baarlamaan baan ahaa guddoomiye baarlamaan waxaasaan qabtay maantana haddaan kusoo noqdo halkaay waxaasaan qabanaya ya dalka uga codaya. yaanoo kale ani weli maan qaban intii aan joognay xusbiga u madaxda ahaana nabadii baan ka shaqeeyey. adduunka oo dhan baan latin america oo dhan colombiaan tegey mexican tegey ururada caalamigaan ku jira. waxaasna waan qaban doonaa. nabadii baan ka shaqeeyey ciidamadii baan u tegey muranka ka saara markay isqabsata somaliland waa ina waxaa ku faana. laakiin baawuraan ka haysanaya oo inta danleyda ah ayaan la garab garac oo heesa qaar lacagsi heesa ii qaada ummad laguma wado layskuna dooran maayo. shacabka reer soomaaliya ana walaa waa idiin sheegay anuu mustaqbalkiina ka shaqaynaya. maanta waad ogtid dalkiina halku maraya. labada xusbi wadani waa kulmiyii hore 7 sano hoy dalku maalintu jabay maalintaas u maalintii sharciga la jabiyey maalintaas u kow waa maalintii la bilaabay inay baarlamaanka iyo guurtida iyo madaxtooyada isku milmaan. waa maalintii la yidhi guurtida aan 3 sano iyo 8 bilood ku dhina baarlamaanka 3 sano iyo 8 bilood guurtan 2 sanadood iyo 8 bilood ee kul isku bilaabay. waa maalintii sharciga la jabiyey ee guddoomiye baarlamaan oo jira sharciina shir guddoon ma sheegay dastuurka guddoomiye baarlamaan shir guddoon la sameeyey. waa maalintii xeer foodhiin oo lagu talay in 3 xusbi la barbaariyo la institutionalize gareeyo way weligood jiraan la furay ciro saad faysal meesha uga qaadin waxaan kuu sameynaa xusbaan kuu furana. waa maalintii xaraashka lagu bilaabay shacabka iyo hantida qaranka. waa maalintii la bilaabay ciidamo aan jirin in la qoro. waa maalintii wixii institution la dhisayey la baabiyey. nabad sugiddu waxay ahayd ilaa maraykanka ay siin jira warkeena nabad sugideenu laanno cabdilaahi ciro oo nabad sugid ahaa iyo rayaalo madaxweyne ahaa ayaa xiriir la lahaa wix alla wixii nabad sugidda soomaaliya ahaa. ragga hadda ordiya waa raggii dalka baabiyey. waan arkaya shalayto ciroo gaaye raashin waa firdhiyo idin habeen oo dhan firdhiyo la hadlaya ana la asal waan fadh fadhiya. marka waxaan idin sheegayaa gebgebtan idama baahna. sharci baa u baahan tahay ku socotaan. maanta dalkeena sharci kama socdo. maxkamadaha haddaad tagtid waa suuq lagu kala iibsaya dadka. wase caafimaadka haddaad tagtid sharci kama jiro. baamushariga haddaad aragtid dadkeena maanta wada kansal bay qaadeen. maxay u qaadeen? 2 arrimood baa wey. waa raashinka wax sharci oo shaqeynaya qofku wuxuu doono ayuu sameynaya. sharcigaanu soo celinaa insha allahu tacaala. dastuurkaanu soo celinaa insha allahu tacaala.
dadkayga gaajoonaya ayaan la dagaalamay, gaajaan la dagaalamina. baabuur damboobi ah fii ayla la keeni maayo, cafiyaan samaysana la soo iibinaya. raashinkeena ayaanu ka shaqaynay dadkan isku filaado. shaqooyin baanu abuurnay insha allahu tacaala. shaqooyin 100% dadka waxaan gelin doonaa insha allahu tacaala farsamada. maanta qof farsamo ah gurigay waxa la saaraya bahalkan ka celiya roobka, magaaladaas la saaraya. tinti ma garanay wax rijaysa ma garanay. dadkan farsamo baranay insha allahu tacaala. waxaanu ka shaqaynaynaa cadaalad. waxaan wadooyinkan isku xidhina, wado qura dhisan ma jirto. wado qura dhisan ma jirto wadanka. horumar baa u baahantiin, nabadgelyo u baahantiin, waxbarasho u baahantiin, caafimaad baa u baahantiin, biyo nadiif ah u baahantiin. inta ma dawladdeena bixisa. bal waxay sheegayaan labada kulmiye iyo sheeg. labada kulmiye haystay shacab bal waxa ka maxamed xaasho wax ii sheegay sheeg. dadka iibinaysa qabiil afmishaarnimo loo afmishaarnimo wada lagu xukumo. aqoon baa lagu xukumaa iyo iimaan. nabi yuusuf alayhi salaam wuxuu yiri idii baqasad muxuu yiri aamin baan ahay, wixii axabkeen baan ahay. shucayb ana shucayb markay nabi muuse u dhib aabo shaqadii qawi aamina. qofku waa inuu noqdo qof aamina oo qawiya oo wax kala jaraya. waa si diinteenu wax ku dooran jirtay inuu amriso. baabuuraanka haysan yahay bag marka waxa weeye inaga dhibaatadeenu waa labada xusbi. waa A iyo B waa shin lacag labadiisa dhinac. haddaa maanta doorataan labada kulmiye nabadda haysataan, ilaahay mahadi haysataan, haysan maysaan. waxay soo kordhiyaan ma jirto, dagaal ma ahayn. imanka isku baayaan, imanka isku baayaan. nabadiina xajista yaani afar danleeyahay oo baawra fi dhaqaystay oo laga kaxeeyay Hargeysa oo laga geeyay Burco oo magaalada door ku baaray yaani idin waal shacbiga footeynaya idin ma socdo way ka horeysay. shacbiga taageerada cid waxaan leeyahay waxaan dhanateedka ah waa iska riyo. maatida dadka codeynaya way garanayaan maanta dantooda. ana oris reer Somaliland oo intaa ka shaqaynayay nabadii ka shaqaynayay waa iga dardaaran. mustaqbalka caruurtiina ha ku aaminina, ha ku aaminina. saldadii saldaan magacii suldaannima la baabiyey. wax aan kasta waan ku ciyaarnay. suldaan weligii lama arag salaadiintayni hore oo suuqa maraya oo caytamaya oo reer caayaya lama arag. aragta kulmiye wadan ka buuxa ee salaadiinta sheeganaya waxay ku hadlayaan. waad arkay shacbiga reer Soomaaliya. waxaan leeyahay shacbiga reer Soomaaliya, ilaahay baa in talada u geeyana, ilaahay baa in difaaci doona, ilaahay baa in ilaalin doona. ilaahay faqsh inaga ilaaliyay inagoo suuqa joogo oo qaawin oo dharkeen la haysto. ilaahay inaga badbaadiyay. maantana ka gudaha khaa'imiinta gudaha iyo daciifiinta aan qawi ahayn dalka 7 sano dambe hayay. ilaahay inaga dad baanu keeni doonaa aqoon leh. dibadahaanu ka keeni doonaa, Yurub baanu ka keeni, Maraykanka ka keeni doonaa oo reer Somaliland oo iimaan leh ayaanu meel kasta dhigi doonaa. baarlamaan wanaagsan baan samayn doonaa insha Allah oo sharci ku socda. guurita waa laga tashan doonaa inuu yeelanayo in kale tala laga gaadho. dastuurkaan furi doonaa, wixii inaga xumaado dhammaan haddii ay hagaajin doonaa. ya reform weyn baan samayn doonaa. waxba inoo dhisanin ma jirto. runtaan idiin sheegaya shacbi wanaagsan baa weeye. shacbigaasna ku joognaa nabadiisa sharci noo shaqaynaya maanta. cid accountable ma jirto. wasaarad wada shaqaynaysa ma jirto. dad dukaamada wada ku saas u taagaya. marka walaalayaal, ilaahay aad samarka gasheen ee samarteen ee dadaasheen ilaahay ku qadin maayo. nabad ku seexda. doorasho wanaagsan inoo dhacaysa. heshiiska ABU waan saxeexnaa insha Allah tacaala. khayrkaas oo soo daadanaya insha Allah tacaala. dhawaana wala saxiix doona insha Allah tacaala.